الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد bulshada marka la hormarinayo waxyaabo asaasi ah ay ku hormarto ayaa jira bulsho walibana waxa jira waxyaabo ka hor qaadi kara iyo waxyaabo hoos u dhigi karaya oo sunan kooni ah oo Rabbi subhanahu wa ta'ala u diyaariyay hadii ay dariiqaas qaadaan waxay noqonayaan kuwa hormarsan hadii aysan qaadinna waxay noqonayaan kuwa duma nabiga sallallahu wa sallam alayhi sidii aan soo sheegnay waxyaabihii uu xadaaradaha dunida ku soo kordhiyay islaamku uu keenay waxa kamid aha dadka in la walaaleeyo qodobka labaad ee marka dadka la walaaleeyo ku xigaya waxa weeyaan dadku inay iskaalmeeyaan dadku inay isa saacidaan dadku inay tacaawun sameeyaan in sameeyo waxa loo yaqaano at-takaful al-ijtimaaci nabiga sallallahu wa sallam alayhi muslimiinta waxa uu ka dhigay sidii hal guri oo kale oo isku tiirsan hadii meel laga bixiyo meesha kale ay soo dumayso oo wuxuu yiri al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan nabiga sallallahu wa sallam alayhi sidaas lamida waxa uu ka dhigay tacaawunka sida aynu ka fahansanahay maahane meel kale ayuu ka taabtay rasuulku sallallahu wa sallam alayhi oo waxa uu sheegay inuu tacaawunku inta ka balaaran yahay oo uusan ahayn anagu inta aynu ku xadidno oo nabiga sallallahu wa sallam alayhi waxa uu sheegay tacaawunka inuu ka soo bilowdo qalbiga oo waxa uu yiri al-mu'minu mathalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'adufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والرسول وحو إشارة تعاطف كالرحمة أي شيء إنسان كمسلم كأه سيداس وكلا وهل كجسد هل مرضي حنون ملك كردان أي حنون يسو أيو إنسان كي هي أيو ليه هي أو تعاطف كأي الرحمة أي كسو بلا غنيسا إسلام كسيداس اللمدة وحو كدغي تعاون كسي عالمية إن ما الله بحيو كلية كما وصندقين وحو كدغي أي شيء أو قف مسلم أتكو عاويسو واد عاويسي واد كالميسي nabiga sallallahu wa sallam alayhi sidaas lamida ayaa waxa uu gaarsiiyay tacaawunka muslimiinta dhexdeeda kaliya islaamku kama uusan dhigin waxa uu ka dhigay wax insaanka oo dhan ka dhaxeeya Allah subhanahu wa ta'ala fi ayatin kujirta suratul mumtahina waxa uu ku leeyahay la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi ad-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsidu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsidin oo kuwii gaalada ahaa oo aan culaadin oo aan la dagaalamin oo aan dhibin waxa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay u ihsaan fala oo birri iyo wanaag u sameeya waayo insaanka marka wanaag loo sameeyo waxa ka duwayna insaanka ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu karameeyo oo Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay walaqad karramna bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahr sidaas darteed waxaan naga rabaa inaynu insaanka kuwa u sameeyo tacaawun isku sameeyo inaynu noqono si aynu u hormarno Allah subhanahu wa ta'ala insaanka isaga oo faraya inay iskaalmeeyaan waxa uu ku yiri aayada labaad ee ku jirta suuratul maa'ida wa ta'aawanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'aawanu 'alal ithmi wal 'udwan Imam al-Qurtubi oo aayadan tacliiq ka bixinaya waxa uu yiri huwa amrun li jami'il khalqi bi ta'aawuni 'ala at-ta'aawuni bil birri wat taqwa wa wax la farayo insaanka oo dhan khalqiga oo dhan inay isku kaalmeystaan wanaaga iyo khayrka Imam al-Mawardi asagana waxa uu ka baxshay aayadan tacliiq aad iyo aad u fiican oo wuxuu yiri Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu amray tacaawun iyo birri waxa uu raaciyay taqwadiisa waayo taqwada Allah subhanahu wa ta'ala ayaa ku raali noqonaya birriga iyo wanaagana waxa ku raali noqonaya ayuu leeyahay insaanka Allah subhanahu wa ta'ala ya insaanka labadaas qofka ay ka raali noqdaan faqad tammat ni'matuhu wa kamulat sa'adatuhu ayuu leeyahay Imam al-Qurtubi sidaas lamida Allah subhanahu wa ta'ala si insaanku uu noqdo kuwa isku saacida xagga maalka marka la yiraahdo ugama uusan tagin insaanka dadka aqniyada ah dadka karamka iyo deeqsiga lagu yaqaano inay iyagu u xadidaan oo dadka ay wax siiyaan bal Allah subhanahu wa ta'ala isaga ayaa maal xadiday oo wuxuu yiri wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum sidaas lamida Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu si xadiday dadka maalka la siinayo dadka u baahan maalka in la siiyo dadka ugama uusan tagin inay u gartaan ee Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wa fi ar-riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil fariidatan min Allah Allah subhanahu wa ta'ala isaga ayaa waajibinaya ugama uusan tagin inay dadku u gartaan ay dadku u waxayaan sidaas lamida halkan waxa imanaysa zakada ahmiyadeeda marka la yiraahdo maalka ahmiyada ay muslimiinta zakada ku leedahay iyo ahmiyada booska ugu weyn ay ka ciyaarayso zakadu in dadku ay iskaalmeeyaan Allah subhanahu wa ta'ala dadka maalka bixinaya kaliya inay waxtar u leedahay ma uusan
ku ekayn, balse alla subxaanahu wa tacaala waxa uu sheegay in ay waxtar u tahay dadka maalka bixinaya iyaga inta aysan waxtar u noqon dadka wax la siinayo. oo alla subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam ku leeyahay khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim biha. nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi zakada marka uu intaas oo dhan uu sheegay, nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi waxa uu xuquuq ka waajibiyey dadka sida ay isugu xigaan. waxaa la doonayaa qofba qofka ku xiga inuu kaalmeeyo. nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi waxa uu yidhi maa aamana bi man baata shabcaana wajaaruhu jaa'icun ilaa janbihi wa huwa yaclamu bihi. ima uusan rumaynin qofkii jaarkiisa oo isagoo og inay gaajaysan yihiin oo isaguna uu dharagsan yahay iska seexda oo aan ayaga wax u geynin. taas rasuulka salawatullahi wasalaamu calayh waxa uu ku cadaynayaa in la iskaalmeeyo oo la isa saacido. cumar bin alkhadaab radia allahu canhu waxa uuna baray darsi isagana aad iyo aad u weyni badan. ugama aanu tegayno in dadka aynu wax siino oo tacaawunka aynu halkaa ku ekayno keliya, balse waxaa la doonayaa in la xaqiijiyo in qofka uusan waxba u baahnayn. cumar bin alkhadaab radia allahu canhu waxa uu leeyahay kariruu calayhim sadaqa wain raaxa calaa axadihim 100 ibil. sadaqada siiya oo siiya, haddii midkiisiiba xataa la tago 100 halaad, haddii uu weli sii baahan yahay sadaqada siiya ayuu leeyahay, si loo gaaro loo xaqiijiyo xaddu lkifaaya, taxqiiq alkifaaya loo gaaro. waxaynu u imanaynaa zakada fadligeeda. nabiga salawaatullahi wasalaam waxaan u wadaa tacaawunka fadligiisa. waxaa nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi dadku inay iskaalmeeyaan oo uu ka ratibay fadli aad iyo aad u weyn. islaamkuna waa uu booriyey fadliga tacaawunka ay leedahay ee iskaalmaynta. nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi xadiis uu warinaya abu muusa alashcari waxa uu leeyahay إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه في إناء واحد فهم مني وأنا منهم. رسولك صلوات الله وسلامه عليه waxa uu yiri qolada ashcariyiinta la yiraahdo oo dad saxaabada kamid ahaa marka ay gaajoodaan, marka ay dagaalka ku jiraan iyo marka ay magaalada joogaan, hadayba ciyaalkoodu ay gaajoodaan, waxa ay haystaan ayay isku keenaan, hal mar ayay ku gadistaan, kadib hal weel ayay waxay ugu qaybsadaan si siman, iyaga oo markaas iskaalmaynaya oo tacaawun samaynaya. nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh waxa uu yidhi fahum minii wa ana minhum. waxay iga mid yihiin anigana ayaga ayaan ka mid ahay, oo ah fadli cadiim jiddan ah. nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi inuu ku sheegto marka la joogo xawdka, marka la joogo qiyaamaha, marka la isxisaabinayo, yaa allah huwa minii, wax ka fadli badan ma jirto. sidaasi la mida fadliga ay tacaawunku ay leedahay. nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh waxa uu yidhi almuslimu akhu lmuslim laa yadlimuhu walaa yuslimuhu faman kana fi xaajati akhiihi kana allahu fi xaajatihi. qofka muslimka qof kale ma dulmiyo, waxay ka mid tahay kaalmaynta, tacaawunka ayay ka mid tahay. qof haddii aadan dulmin waad kaalmaysay, haddii aadan dhiibin oo aadan dhibin waad kaalmaysay. sidaasi la mida rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh fadligeeda ayada asaga oo tilmaamaya wuxuu yidhi qofka walaalkiis garab istaaga, xaajadiisa ka kaalmeeya, allah subxaanahu wa tacaala ayaa asna garab istaagaya oo xaajadiisa kaalmaynaya. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. qof haddii aad kurba ka faydo oo aad kaalmayso, allah subxaanahu wa tacaala maalin aad uga baahi badan tahay ayuu allah subxaanahu wa tacaala ku kaalmaynaya oo uu kurba kaa faydaya. imaamu nawowi alminhaaj sharxi saxiix almuslim waxa uu ka bixinaya xadiiskan qaybtan dambe tacliiq aad iyo aad u qiimo badan oo wuxuu leeyahay ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أعانها من فرجها بماله أو جاهه. qofkii waxaa soo galay ayuu leeyahay qofkii kurbada la iska faydayo, qofkii ku fayda maalkiisa, wejigiisa oo dad kale uga faydo oo yiraahdo qofka aniga aqaana saas oo kale, wax waliba oo u sacyiya waa uu soo galaya uu leeyahay. wax uu raacinaya wadaahiru annahu yadkhulu man farajaha biishaaratihi wa ra'yihi wa dalaalatihi. qofkii ku fayda ra'yigiisa waa uu qofka ra'yi ayuu siinaya, waad kaalmaysay, tacaawun baad samaysay, qofkaas ishaaro ayaad siisay, waad la talisay, waxaba waa tacaawun. islaamka marka la eego allah subxaanahu wa tacaala waxa uu kaa faydayaa maalin aad kurba u baahan tahay. waman satara musliman satarahu allahu yowma alqiyaama. waxaad samaysay dembi weyn, maalinta qiyaamaha waad cabsanaysaa. maalin qof muslina aad asturtay, wax uu sameeyey oo aad u qarisay oo aad asturtay, ilaahay subxaanahu wa tacaala adigana waa uu ku asturaya oo waxa uu leeyahay qofkan aniga ayaa asturay. fadliga markaaynu kasii hadlayno, nabiga salawaatullahi wasalaamu calayhi tacaawunka waxa uu gaarsiiyey meel aynan xabaaradii uga horreynay fi lxadiidi walaa fi lqadiim. oo abu dari ayuu waxa uu ku yidhi yaa abu dar kulli yowmin dalacat fiihi shamsu, maalin walba ay qoraxdu soo baxdo jirkaaga waxaa lagu leeyahay sadaqo ee sadaqada ka bixi. abu dar nin waxaystay ma ahan, wuxuu yidhi yaa rasuul allah laysa lana fi lamwaal
amwaal ma haysano ee sadaqada xagee ayaynu ka bixinaynaa? waxa uu ugu jawaabay yaa abadar صدقة يتعاون كماش أتكفي سواء وكويه تهدي الأعمى وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه واحد كالمين يساقفك إنها لأميال أيات السيسا كي ديها لأي وحول بأنا المقلين أو أنا الهلين أيات واحد فانسين يساوات كلمة تعاون كأي كميتها تعاونكم ما مال كلية سيدة سلم إذا الرسول صلى الله وسلامه عليه وحوير وتدل المستدل على حاجة قد علمت مكانها واحد تسيسا قف waxa u baahnaa oo meel uu kaga tagay ama ka qarsoomay laakiin adiga aad ogtahay waa tustay waad kaalmaysay oo tacaawun ayaad qofka ku samaysay halkaas waxa ka koriya takaafulka ijtimaaciga ilaa ay bulshadu ka noqoto bulsho horumarsan sidaas la mid rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi waxa uu leeyahay watas'a bi shiddati saqayka ila al-lahfan al-mustaghif waxaad ku soconaysaa cagahaaga oo aad adeegsanaysaa qofkii ku kaalmad dalbiya ayaad kaalmaynaysaa inta cagahaaga aad ku socoto waad kaalmaysay sidaas la mid rasuulku sallallahu alayhi wa sallam alayhi waxa uu yiri watas'a bi shiddati diraa'ayka ma'a ad-da'if waxaad gacmahaaga aad kula qaadaysaa qofkii kaalmaysna ama isaga qaad ama wax u qaad intaba tacaawunka ayay kamid tahay ayuu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam rasuulka sallallahu alayhi wa sallam alayhi sidaas la mid qofkii sadaqada iyo dadka tacaawunka ijtimaaciga sameyn waaya qofka walaalkii isagoo awooda aanan kaalmaynin oo aanan tacaawun u sameeynin rasuulku waxa uu sheegay cuquba adag inay ka ratimayso nabiga sallallahu alayhi wa sallam alayhi wuxuu yiri ma min imaamin yughliqu babahu duna dul haajati wal khallati wal maskana illa aghlaqa Allahu abwaab as-samaa'i duna haajatihi wa khallatihi wa maskanatihi qofkii imaamka مثلا hadii uu qofka dadka uu kaalmayn lahaa oo waxsiin lahaa dadkii xaajada lahaa hadii uu albaabka ka soo xirto oo san waxsiinin ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana abbaabka iyo albaabada samada ayuu ka soo xiraya muawiya ayaa markii uu xilka yimid xadiiskan loo sheegay isla markii waxa uu magacaabay lajna iyo qof dadka wax ka doonaya isaga u taga maadaama uu isagu mashquulsan yahay waxaynu ka fahmaynaa xadiiskan qofkii anaga noo baahan oo qof kale aanan haysanin hadii aanu albaabada ka soo xiranno inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana naga xiri doono albaabada samada sidaas la mid rasuulku alayhi salatu wassalam waxa uu sheegay xadiis cadiim jiddan ah xadiiskan waxa wariyay Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir wal-Awsat wa ulama akharun waxa uu sheegaya ma min imri'in yakhdulu imra'an musliman في موضع تنتهك فيه حرمته أو ينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب نصرته قفك ولالك هدي آذن meel waxaad fadhidaa walaalkaaga cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa lagu nusqaaminayo hadii aadan meesha walaalkaaga aadan tacaawun u sameeynin oo aadan u kicin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu adna ku hoojinaya meel aad uga baahan tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aadan ka helaynin baahidaas qof bila aadana illa Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala balse waa uu ku hoojinaya waayo walaalkaaga ayaad hoojisay tacaawunka ay kamid tahay nabiga sallallahu wa salaamu alayhi qofkii isaguna walaalkiis u kaca fi mawdicin tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi wuxuu yiri inna allaha yansuruhu fi mawdicin yuhibbu nusratahu waxa uu gargaaraya boos uu jecel yahay ilaahay in uu u gargaaro ayuu ilaahay u kacaya oo u gargaaraya oo uu garab qabanaya halkan culimadu waxa ay ka waajibiyeen oo ay leeyihiin ay ka qaadanayaan culimadu waxyaabo ajaa'ib ah oo ay leeyihiin hatta qofku salaada waa uu uga baxaya qofka walaalkiisa si uu u kaalmeeyo walaalkaaga dab ku dhacay waad kaalmeynaysaa waad u kacaysaa takaafulka ijtimaaciga ayaad sameynaysaa waxyaabo tiro badan ayaad dantaada uga tagaysaa oo walaalka ayaad u kacaysaa sidoo kale culimadu waxay leeyihiin fardu aynin ayay kugu noqonaysaa hadii aad adiga kaliya aad woodid walaalkaaga waxa u baahan yahay adiga kaliya hadaad awoodid adiga ayay fardu aynin kugu noqonaysaa waajib adiga ku saaran sida ay salaadu ku saaran tahay ayay ku saarmaysaa waxaan idin rajeynaa inaad faa'iideysateen oo aynu tacaawunka ka shaqeyno takaafulka ijtimaaciga ah sida islaamku noogu boorinayo inaynu ummadda aynu mithal ugu noqono tusaale ugu noqono ka bilow naftaada ka bilow walaalahaaga inaad kaalmayso ka dariska kaalmayso ka bilow inaad sida aad ku wada bulshada adiga hala bilaabaha orane bilow. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi